soo dhawaad saaxiibayaal qaybtan waxaan ku eegaynaa xogtii wararkii ugu dambeeyay iyo wixii ka soo kordhay dilkii maanta loo geystay taliyihii guutada 14 Oktoobar gaashaanle sare Nuur Maxamed Gaawo Nuur Fari oo ahaa sargaal aad u dhiifoon aadna ugu fiican dagaalada al-shabaab iyo hogaaminta ciidankaba. Nuur Fari wuxuu ahaa nin sargaal ah dhalinyaro ah tababarna ku soo qaatay wadamo kala duwan sida Uganda iyo dalka Talyaaniga halkaas oo tababar ciidamada iyo khibrad ciidan halkaas uu kaga soo qaatay. Nuur Fari wuxuu ahaa sargaal ku fiican hogaaminta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuuna qayb ka ahaa dagaaladii al-shabaab looga xoreeyay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Nuur Fari wuxuu ahaa sargaal ku fiican dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab wuxuuna hormuud u ahaa guuto la yiraahdo 14 Oktoobar oo hadda ka howlgasha qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Allah u naxariisto sargaalka balse waxa ka soo baxaya dirkiisii xogo dheeraad ah waxaana lagu soo waramayaa in ninkan uu toogtay mid ka mid ah ilaaladiisa oo markii horeba ka soo goostay kooxda al-shabaab sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha laamaha ammaanka ama ciidanka ku sugan qaybo ka mid ah Shabeellaha Hoose inta badan askarta uu watay waxa la sheegay in ay ka soo wada goosteen kooxda al-shabaab taasi ugu dambeyn maanta waxa ay sababtay in Nuur Maxamed Gaawo Nuur Fari uu ku geeriyoodo gacanta mid ka mid ah ilaaladiisa waxaana rasaasta la hubiyay qaybo ka mid ah jirkiisa ku dhacday lagu soo waramayaa in isla markiiba uusan naf dhul la dhicin Nuur Fari xabadana ay ka haleeshay meel aad u halis ah sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha amniga ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanka Cadow Dibile oo ay halkaas ku sugnaa xilliga sargaalkan la hubinayay xabadda. Allah u naxariisto Nuur Fari hadda waxaa loo soo qaaday meedkiisa magaalada Muqdisho waxaana la rajeynayaa in maalinimada berito ah aasaran lagu sameeyo magaalada Muqdisho ayna ka soo qayb galaan madax fara badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Nuur Fari wuxuu ahaa sargaal aad u dhalinyaro ah kuna soo waxbartay dalka dibadiisa tababar badan ku soo qaatay dalka dibadiisa wuxuuna ahaa nin aad ugu firfircoon hogaaminta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuuna qayb ka ahaa dagaalo badan oo kooxda al-shabaab lagu xiriiriyay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. sidoo kale Nuur Fari inta aan la dilin ka hor Nuur Fari wuxuu u qudbeynayay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 14 Oktoobar oo halkaas iyaga u jooga dardargelinta dagaalka dhana kooxda al-shabaab maadaama al-shabaab dalka oo dhan uu kaga socdo dagaal lana rabo in laga xoreeyo qaybaha ay kaga soo yihiin Hiiraan Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. sidoo kale caawa waxa soo baxaya warar sheegaya in caawa ay cabsi soo wajahday taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida tani waxay keeni kartaa halis weyn maadaama taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ay iyaga maalin iyo habeenba dhiirigelin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ula taageen furmaha hore dagaalka iyagoo inta ay soo hor istaagaan ciidamo ka wada tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa macwiisleyda oo iyaga aan soo qaadan tababar ciidan aanan aqoonin anshaxa iyo asluubta uu mudan yahay sargaalka hortaagan tan waxay noqonaysaa halis weyn oo soo wajahday saraakiisha laamaha ammaanka qaybahooda kala duwan waxayna si qaas ah cabsi weyn u soo wajahday caawa lagu soo waramayaa taliyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jarnaal Odawa Yuusuf Raagi ay caawa isaga soo baxeen furiimihii hore dagaalka ay ku sugnaayeen gaar ahaan degmada Aadan Yabaal bacdama maanta dil loo geystay mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo u geystay mid ka mid ah askarigii ilaalada u ahaa cabsidan soo wajahday caawa ayaa sabab in Odawa iyo Shoota isaga soo baxaan furmaha hore dagaalka maadaama ciidanka hadda ay noqdeen kuwo aan la isku aamini lana soo hor istaagi karin waxna loo sheegi karin sida dhacday maantaba. Odawa iyo Shoota waxa lagu soo waramayaa in ay baqdin iyo cabsi weyn ka qabatay ciidamada ay har iyo habeen furmaha hore dagaalka ay kula sugu yihiin maadaama maanta ay dhacday mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xanuunka badnaa ka dhacay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in adiga askari ilaalo ku ahaa aadan shaki badan ka qabin uu rasaas ku hubiyo waxa waaye dhacdo aad ugu bah aadan marna filan karin isku soo wada duub caawa waxa lagu soo waramayaa qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay ku sugnaayeen saraakiisha laamaha ammaanka qaybahooda ugu soo sareeyay iyo xildhibaanada iyo wasiiro oo maalmihii la soo dhaafay u sii qulqulayay furmaha hore dagaalka ay caawa isaga soo wada laabteen isagana soo ruqaansadeen magaalada Muqdisho bacdama maanta dhacdo xanuun leh ay ka dhacday qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. madaxdan caawa u soo wada ruqaansadeen magaalada Muqdisho ayaa cabsi xoogan soo wajahday kadib markii maanta mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu rasaas harqiyay mid ka mid ah ilaaladiisa. saraakiishan caawa waxay isku wada yimaadeen magaalada Muqdisho iyaga iyo xildhibaanada iyo wasiiradii booqday maalmihii la soo dhaafay furmaha hore dagaalka waxaana lagu soo waramayaa caawa in ay ku sugiin magaalada Muqdisho bacdama furimaha hore cabsida ay ka qabaan kooxda al-shabaab ay ugu darnaatay cabsida ay ka qabaan ciidamada ilaalada u ah iyo kuwa furimaha hore dagaalka ay kula sugan yihiin. si kastaba dowladda federaalka waxay wadaa baaritaan ku aadan dilkii maanta loo geystay gaashaanle sare Nuur Maxamed Gaawo Nuur Fari oo qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha uu ku dilay mid ka mid ah askarigii ilaalada u ahaa
waxayna sheegtay dowladda inay baaritaan ku sameynayso dilkaas iyo waxa keenay wixii kasoo kordha dilka maanta loo geystay taliye Nuur Ferey iyo saraakiishii caawa iskaga soo wada baxday furmaha hore dagaalka ee gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose adiga ayaa noqon doona qofka ugu horeeya daawada waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay markii ugu horeysay ay soo booqato inaad subscribe channelka like iyo si aad in si gaaro saaxiibo adiga oo kaleeta aad iyo aad u mahadsantahay mahad ka gaadhay ayaan ku leeyahay